xanuunka kama nixin waxaan ka naxay oo kaliya duruufta iyo mucaanaadka qof aan shaqaysan oonan lahayn garab dhibaatadeeda waa dhibaato gaalad ma ihi qof muslimaan ah alxamdulilah waan ogahay inuu ilaahay ummadda isku saqro laakiin waxay ahayd duruufta aan waajihaya kaliya ayaan aad uga naxay daa'imanna waxa aan ka naxaa alxawja inaad baahida way kulushahay waa Leyla Bashiir Jeenyo in ka badan 4 sano ayaa maalin dhaaf kaliyaha looga dhaqaa waxa ay imika dareemaysaa in uu waqtigu ka daba yimid hadda waxaan dareensanahay inuu ay dunida iga daba timid qof 4 sano laga dhaqaayo waad garan kartaa 4 sano oo maalin dhaaf aad isbitaal u socotid 6 sano way haddaan inta diyaalis ah 2 sano waan diidanay in la iga dhaqaba dunyadu waa imtixaan Leyla waa qof aad u niyad wanaagsan balse maareynta caafimaadkeeda ayaa ka oohiyay wax ka kulul ma lahan inaad u baahatid caafimaadkaaga sidee aan u tagaa wallaahi subax markaan kaco oon tukado aan alxamdulilah dhaho waan u kallahaya isbitaalkan dhahaa gurigeeda dadna waxay u kallahayaan risqi iyo magaciis dadna caafimaadkooda u kallahayaan keef aan maalinteeda ku noolaada alxamdulilah waa dhib weyn bay igu ahayd laakiin alxamdulilah niyadana ma gashan maalin niyadda ma gashan inaan aan dhibana ahay ma ahan qof shaqaysan kara noloshuna waa ay ku adag tahay oo labada kali oo aanan shaqaynaynin waxa uu sii dheer xanuun kale caafimaadku helay si aan u shaqaysan karaa haddaan maanta is iraahdo shaqayso ma shaqaysan karo meel kastood ka shaqaysan kartid ba caafimaadkaaga ee hortaaga saadoodu wax ma qabsan kartid marna dadka lama simid ani waliba hadda kilida bas maahan 2 xidid ayaa qalbiga xiran ayaga naftigooda waxay rabaan in la furo qalbi waxaan qaataa kaniin aan u qaataa ayadana qalbiga Leyla dhakhtarkeeda ayaa ku wargeliyay inay si dhaqso ah u hesho kille maadaama xaaladeeda aysan wanaagsanayn dhakhtarkeedu wuxuu leeyahay killida waa ina kille si degdeg ah Leyla ku heshaa si degdeg ah ina hadda kille ku heshaa killida waxa weeyaan qatar yani maraaxil leedahay dhaqista naftigeeda maraaxil leh oo qofka qaadan karayo dhaqista maraaxilkaas hadduu dhaafo jirka ayaa sun uu isbedelayaa intuu jirkaaga isbedelin kaliya waa in lagu helaa warkabadha Soomaaliyeed walaashinaan badbaadino war wixii aan tari karno aan tarno kala fikir halkaas ku qorayay Sacuudiga joogtaa ummadda Soomaaliyeed kuwa Soomaaliya jooga iyo kuwa Mareykanka jooga iyo kuwa Makarasay warbaha ku nool iyo kuwa gudaha ku nool inta Soomaaliyeed hal loo wallahi billahi taala iimaanka iyo aqoonta gabadha ku jirta haddaad dhigaysatid ama aad wacdid waxa weeye Ilaahay ayaa ku keenaya waa qof karti iyo dadnimo iyo adkaysi u laatay waxay aaminsan tahay qadarka Ilaahay war kilibka shargareeya oo gaarsiiya ummadda dhan gaarsiiya dawladda haday ay Sacuudiga ay la hadlaan xataa wax waa la iiga qaban karaa Leyla oo hadda ku sugan Sacuudi Carabiya waxaan kula kulmay Muqdisho ka hor inta aysan ku laabanin Sacuudiga oo daruufo nololeed oo aad u adag awgeed ugu noqotay $35 qof aan shaqaysan intuu ka keenaya maalin dhaaf ma helayo waa igu dib hadda wallaahi billahi haddaan maanta haysto dhaqistaas oo digfeer ama aan awood u leeyahay wallaahi Sacuudiga kuma noqdeen laana maanta waxaan ugu noqdo xataa ma hayo dhaqis baan haystaa alxamdulilah ninkaas أي لحظة أي وقت أي استاجرة لأنه سعودي جمعية خيريات كيودن بالاستاجي Leyla Bashiir Jeenyo ummadda Soomaaliyeed iyo madaxda qaranka ayay si naxariis leh ugu codsatay inay garab ku siiyaan sidii ay u heli lahayd caafimaad wanaagsan dawladda oo dhan ugu horeeya madaxweynaha ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha gobolka dawladda oo dhan iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan inay codkayga maqlaan ani maanta dhibaato ay haysataa waan ogahay dad badan oo sidayda kala ay jiraan
laakiin aniga alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaan hubaa inay codkayga hadday wada maqlaan inay wax ii qaban karaan. intiina awooda inay caawiyaan Layla ama doonaya inay la xiriiraan waxaad ka heli kartaan telefoon nambarada ay afkeeda ka sheegayso. lambarkayga Sacuudiga waxa weeyaan eber 966 5 eber 57 eber 58 6 raqamkayga labaad waxa weeyaan eber 966 53 eber 3 2 1 9 Layla Bashiir Jeeyo waxaan u rajaynaynaa caafimaad wanaagsan iyo in ummadda Soomaaliyeed ay garab istaagaan. Cabdulqaadir Cumar Cabdulla Fiidka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, telefishinka Somali Cable.